beesha Mobilen Cismaan oo uu hogaaminayo ugaaska guud ee beesha ugaas Cabdullaahi ugaas Saalax ayaa waxa ay tacsi gudasho u tageen hoyga Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo uu ka furan yahay buugga tacsida ee marxuumka beesha Mobilen Cismaan ayaa ku wareejiyay guddiga tacsida 10 neef oo geel ah iyo raashinkii loogu talagalay waxaana ka gudoomay guddiga tacsida oo uu hogaaminayay ugaas Maxamuud Cali ugaas iyo xubno kale ugu horeen waxa madasha ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha Mobilen Cismaan iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha Mobilen Cismaan ugaas Cabdullaahi ugaas Saalax waxaan isdhahaa mararka qaarkood madaxweynaha waxa weeyaan runtii bulshada intii uu ka degay xukunka inuu bulshada isku waday oo maxay ahayday ururinteeda isku wadkeeda iyo isu tanaasulkeeda iyo kaalmayntooda intaba ayuu u taagnaa marka waxaan leeyahay Allah u naxariisto wuxuu ahaa adeer wuxuu ahaa walaal wuxuu ahaa saaxiib dhammaanteen way naga wada geeriyooday marka waxaan leenahay ilaahay walaalkan samar iyo iimaan Allah naga siiyo ehelkii oo ka dhintayna ma aragtay ilaahay ma aragtay gadaashiis ma fidnayo dhammaantaan oo naga wada dhintay Mobilen Cismaan ayaa idin yimid walaalaheen Abgaal Cismaan macnaha ayagoo tacsiya ah oo tiiraayaysan oo walaalkood geerida waa xaq marka laakiin waa ma aragtay waa kala kuleel badan tahay marka waxaan leeyahay Allahna wada sabar siiyo 10 neef oo geela ah iyo ma aragtay baawarkan badarka ah ayay ma aragtay tabartooda soo dhaafi waaysi xoolo ma aha laakiin wajiga ka fiican iyo walaalnimada in la soo xasuusto madaxweynaha loo sheegayna muddadii uu joogay waxa waaye 10 sano oo dawladda rayidkeedna siyaasaddu ku jiray 20 sanana wuxuu ahaa nin ganacsada ah marna ma aragtay dadka ka hor jooga ma aragtay in laga baxo fikirka kale talisnimada inta dambe la yaqaan wuxuu ahaa nin Soomaaliyeed u istaagay dawladnimada maanta dhisan inuu badbaadiyo waxa way dawladda rayidka ee maanta noo taagan waa aasaaskii oo asaga dhigay oo maartay miraheedii una ilaali jiro nagala dardaarmi jiray waxaan leenahay taariikhdiisa sida loo sheegay in la qoro maartay aadan maartay u rajeynayna Allah u naxariisto qalbiyadeenu ku qoran yahay iloobi doono waxaan leenahay qaraabada uu ka dhintay gaar ahaan labadan beelood waa maartay laba beelood oo isku soo xoro curadka aabaheena waxaan leenahay gaar ahaan Allah u naxariisto anagoo idin la wada leh awlaadu ka tagaan waxaan leenahay wiilashiisa liibaan ugu horeeyo Allah u naxariisto intuu ka tagana Allah noo barakeeyo annagan Ilaahay gadaashiisnimo fidneeyo cudurkan iyo dhibka jirana Allah naga bixiyo intuu u bagtana Allah ka baaniyo Ilaahay maartay meel aan la aqoon iyo bari aan la aqoon Allah ku rido caafimaad umada Allah u soo dejiyo amni idam Allah waa mar labaad mar saddexaan leeyahay Allah u naxariisto ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay guddiga tacsida oo uu horboodayay ugaas Maxamuud Cali ugaas waxaana ay ka mahad celiyeen kaalinta ka qayb qaadashada tacsida ee beesha Mobilen Cismaan akhyaarta hore ee qarlaasiyo muuqaal iyo maal iyo si walba ku timaadeen soomanadaahina gabagabadiyaa timaadeen ciribtana lagu duceystaahay maaragtay insha Allah tacaala wixiina ciribtan Allah nooga dhigo waxaad keenteen maxal jiray waana badan yihiin insha Allah waana barakeysan yihiin marka Allah idinka jiseeyo walaalaheen Mobilen waxaad keenteen geel waxa ugu gaashaweyna Soomaali ay isku qurxiso amba isku marti soorto waxaana lagu duceystaa amba mudlood ku duceystaa amba deegaankan ku duceystaan keydka Mobilen Allah ka dhigo marka keydka Abu Hurayra masaalkiina Allah ka dhigo dadka deeqana Allah idin barakeeyo hadii darajadana Allah idin kordhiyo Allahna isu kaa caafiyo مسكينك ما كتجنا كتاب كيس مدق الله كسيو كتاب كيس مدق الله كسيو قبر كيسنا الله واسعيو جنة الفردوس الله كورابشو يديكنا سانتا سوقات حيدا نوق لهين الله يتكندقو أجري حسنان الله يتكسيو ميدواجري درهم مدش الله داريو الله نسخاي عافيو محمد إيدل هذه أي تلفزيون كدلسن مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكان بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كمدا waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka